dadweynaha ku dhaqan magaalada London gaar ahaan xaafadda Woolwich oo uu hormood ka yahay Maxamed Xasan ayaa soo dhaweyn ballaaran waxa ay u sameeyeen ururka kaalmada dadka dhibirka wax ka qaba ee Jamhuuriyadda Somaliland. Ururkaas oo xaruntiisu ay tahay magaalada Cardiff. Guddida ururka oo ka soo boqolay magaalada Cardiff ilaa magaalada London ayaa waxay aad ugu mahadnaqeen dadka degan xaafadda Woolwich iyadoo goobta lagu ururiyay lacag ku dhow 15,000 oo giniga sterlinka ah iyadoo goobta shahaadada la guddoonsiiyay dadkii muntaystay. Haddaba hadalladoodii waxaa ka mid ah sida tan. waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa ururka la yiraahdo Somaliland Mental Health oo basekiisu yahay waddanka UK magaalada Cardiff oo caawa martiino ah oo u yimi halkan inay u sameeyaan fundraising dadka ay u shaqeeyaan ay haleeshay xanuunka maskaxda ee waddankii ayaa caawa halkan martiinoogu ah waxay qabtaan iyo taariikhdooda iyo waxyaalaha ay soo qabteen iyo waxay doonayaan inay qabtaan iyaga ay noo sheegi doona fiilmaynu daawan doona wixii ay soo qabteen waxay doonayaan targetkooda iyo meesha u socdaan iyaga ay noo sheegi doona anigu wuxuu baan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo nimanka odayaasha ah magaalada Greenwich sidii aynu dee martida u soo riyeyn jirnayna waana looga fadhiyaa inaynu uga qayb qaadano charity-gaas oo xasana waxa weeye waa sadaqa jaariya sheekha inoo sheegi doona nolosheena ilaahay uu abuuray waxaan u joognay adduunyada waxa weeye imtixaankaas inaan ku liibaanin ay aakhire la su'aalhay waxyaalo badan baa la kulmaysa adduunyada oo ah adiga lagu imtixaanayo مثلا هذا قلوين كهذا نوصل مرديي تتبدن بهيان إلى أي بقول يكبدن أي هيان أو مسكحوا إنسان لما يسترنين كان مسكحوا إنسان لما يسترنين لها أي كم عقاب لها أنا كنا امتحان هي أرنكا نوسعنا رنتي نعاو هل كنا وحنا إذا كذا وسين دونا وحنا إذا كشاكين دونا أيام إن شاء الله إذا سوبر نيجي دونا أوركن Somaliland mental health أو رنتي دورية 8 سنوات Somaliland كشاكين يجي halka uu ka shaqeeyaana dadka xanuunsanayaan aanay haynuun dad reer Somaliland haddii aad dhakhtarada aad tagto Soomaaliya oo dhimiba ay joogaan oo ninka xanuunsanaya cidba ma laha marka waxaan maanta idinka fadhinaa hadaa reer Greenwich in reer Woolwich waxaan idinka fadhinaa gacan wanaagsan baan idinka fadhinaa oo aad dadkeena xanuunsanaya ee aan cid lahayn ee cid u hadasho lahayn runtii sidii deebagarasa aynu wax ugu qaban lahayn hadduu qof waloo inaga midiba qof kafaala qaato waa intaasaa ku filaanaysa marka kolley taariikhda waa la idinka sheekan doonaa ururka haddii la yidhaa ururkan nagu kalifay aniga waxay u kalifay markaan ururkan samaynayay soo qaadatay 2011 islaaniyo sodda oo sawirka soo qaadatay dhakhtarka reer saxarada dhex taalo anigu kuma korin waddankeena qurbahan ku koray anoo afriisan jiran ka baxay Soomaaliland oo burburin aan ka baxan aan qurbaha ku koray marka haddana marka sawirka arkay waan ka adkaysan kari waay cidna igama xasuusin cidna waxba igama qabin walaalna igama jirin adeerna igama jirin laakiin haddana waa dadkaygii habeen kasta la dhamaanay ma jirnay idan la mid baanu nahay sidii aanu caruur yar leenahay 4 saacadood baan maanta soo soconay 3 saacadood baan xalay seexday sidii aanu shaqaynaa sidii aanu nafleenahay haddana haddii aad maanta intiina nala qaadataan filimkaas oo shaqada nala qaadataan change wax badan baynu bedeli karnaa markaanu charity-kan bilownay ugu horeysay waxaanu qabanay inaanu tagno dalkii oo aanu soo aragno xaaladaha dadkaas ku sugan yihiin waxaanu ka soo bilownay Boorame waxaanu ku xigsiinay maxaan ku Gabiley haddana Hargeysa nimid haddana waxaanu qabanay Berbera haddana waxaanu qabanay maxaan Burco intaasaan isku soo marnay safarkii ugu horeeyay magaalada waxaan nimid maxaan ku raadinay Gabiley waxaan ugu nimid nin dhalinyaro ah oo maxaan ku raadayay sidii dalka loo soo galay wuxuu ahaa ragii maxaan ku raadayay dagaaladii iyo waxa maxaan ku ka soo qayb galay dabeetana waxa weeyaan maskaxdiisa uu xanuunsan guri waxa lagu hoos xiray sanduuq baa lagu hoos xiray sanduuqaas ayuu ku jiray waxa weeyaan lugtu ka xiran yahay meel walba uma bixi karo halkaas saxarada iyo kaada iyo waxba laga qaadaya cuntada loogu keenaya sidoo u fadhiyay wuxuu gaaray inuu kici kari waayo oo dabada ku siqo sidoo isaguna u xidhnaa halka ugu xidhnaa isna sidii bay maxaan ku raadayeen
geeridu ka keeno xanuunkani waxa weeyaan qofna muu dooran qof maanta doortay ma jiro ilaa ilaahay qofka u keena laakiin jeebkiina ayaanu maanta wax ka doonaynaa mahadnaqayaa haddana waxaan inoogu yeedhayaa in professor Iid Cali Salaan oo runtii maskaxda ka dambaysa ururka ah arrintu waxa weeye markaad aragto 5 qof amba 6 qof oo arrin u dhaqaaqa oo dar ilaahay ugu dhaqaaqa oo isku daacada oo wada socda oo meel u wada jeeda quwadda ilaahay ayaa timaada oo gargaarta waxa meesha yaalla waxa weeyaan in damiirka iyo jeebka aynu isku xidhno labadaas aan inta badan dadku aan isku xidhin damiirka iyo jeebka inaynu labadaas isku xidhno deeqsinimadu gaal iyo islaamba waa sifooyinka dadka wanaagsan waxyaalo badan oo sadaqadu ay noo qabatay aan ognahay aan soo taabanay runtii oo markii aanu sadaqada la bixiyay wixii aan doonay ilaahayna siiyay ilma naga soo daalatay runtii laakiin waxaan aad ugu hambalyeelayaa xaafadan oo aan anagu urur ahaan magacii ka bedelno oo bixin doono xaafadii ugu lacagta badnayd my first language as well. So I just obviously just let everyone know the work that Abdi Nasser and everyone else does. cabdiraxmaan shaqalle tv-ga jamhuuriyadda qaranka somalilan magaalada london